Isli waa mid ka mid ah suuqyada ganacsi ee ugu weyn bariga iyo bartamaha Afrika. balse ujeedkaygu ma ahan ka hadalka ganacsiga si kobcaya Isli ee waa soo bandhigista xoogoo daahsan oo halkan ku jira. Doorsigu waxa adeegsada dadka Italian liita isku daya markasta inay maareeyaan noloshooda iyo tan reerkooda. Mararka qaar waxaa suuragal ah in qofka insaanka diintu doono ha heeste waxa uu raadiyaa wadooyin u sahli kara gaarista meelaha uu rabo si uu gaaro bartilmaameedka saxda ah. Tani waa Islida qarsoon ee aan war iyo wacaal midna loo haynin ee dadka wada joogaan haddana ay si kala jeedaan iyadoo uu qof kasta qumanihiisa qoorta uu jiro. tani waa haweeney hagoogan ama asturan waxay u socotaa shaqo dabciyan ee la dhacsan tahay oo ay u aragto inay tahay mid fudud. hadda iyada ayaan la joogaa muuqaal duubahayga meel xaggaas ah ayuu joogaa iyada ma oga hadda inay duubis ku socoto balse waxaan weydiisanayaa ogolaansho ah inay ii ogolaato waraysi ku saabsan shaqadeeda. waxay igu tiri galabta igu imaw xaafadayda oo ii sheegtay inay ku taalo Kayole. waxaan imaaday xaafadda Kayole meeshan ay ku sugan tahay mid ka mid ah haweenka u imaaday Isli inay tuugsadaan. nasiib darro waxay ii sheegtay cudurdaar waana ka yeelay mise bari oo jimco ah igu imaw gurigayga waayahay ayaan ku yiri anigoo hanaaqsan. maalintii xigtay ee balanta ii qabatay ayaa la gaaray waana u imid gurigeeda hortiisa ayay igu sugaysay. hadda iyada ayaan sii raacaya waxaana u soconnaa xagga sare ee guriga si bal aan isku waraysanno aniga iyo ayada. ugu horeyn waxaan weydiiyay waxa ku qasbay iyada aan muslim ahayn inay asturto waxaana igu jawaabtay waxaan dharkan u xirtaa sababtoo ah dadka badankooda way xumaadeen laakiin muslimiinta waa dad fiican oo iyaga oo lacag haysta ma ogola inaad gaajo ku seexato. magacaygu waa Aston Silu waxaana haystaa 3 caruur ah 2 gabdhood iyo 1 wiil. sababta aan u tuugsanayo waa in ninkayga uu joojiyo inuu wax isiiyo anna ma shaqaysan karo oo si fiican wax uma baran. Kenyana waa in aad haysataa shahaado si aad shaqo u hesho ama aad leedahay qof kugu xiriiriya. waxaan bilaabay inaan iska tuugsado si aan caruurtaydu ugu helo wax ay cunaan. haatan waxaan tuugsanayaa 2 sano iyo bilooyin. lacagta ugu yar ee aan guriga la aado maalinkii waa 1,500 oo shilinka Kenya ah sida maalmaha qaar ee ay roobabka da'aan oo aan dad badan banaanka u soo bixin. badanaa waxaan fariistaa masaajidada waaweyn sida Jamia Mosque iyo masaajidda Isli ku yaala iyo xaafadaha muslimiinta waa dad siinaya waxay haystaan. muslimiinta waa dad ku siinaya waxa ay haystaan. But Muslims hawana hiyo roho ya kukufukuza, they just give what they have. waxaan weydiiyay ma laga yaabaa inay muslim noqoto. Kwa Muislamu sidani nimelelewa kwa Ukristo. maya lagama yaabo in aan soo muslimo maxaa yeelay waxaan ku soo barbaaray diinta Kiristaanka waxaana u arkaa in ay shareecadoodu adag tahay. inajali kwangu saa hizi. The rest mimi sijali kama ni mbaya ama ni mzuri, bora watoto wangu wakule. waxaan samaynayo ma ahan wax sax ah laakiin waxba igama gelin. marba haddii aan caruurtayda u helayo wax ay cunaan waxa ka soo hara ma kala jecli in ay sax yihiin iyo in kale. aroortii ayaan kacaa caruurtaydana waxaan u kariyaa wixii aan shalay soo helay. hal cunug horay ayaan u soo kaxaystaa si uu ila dawarsado sidaas ayaana sameeyaa. aniga iskoolka waxaan ku gaaray galaaska 8aad. waalidkayga lacag ay wax igu baraan ma aysan haysanin laakiin
ingiriis yar ayaan aqaanaa sidoo kale sabaaxiliga waan ku hadli karaa wax badan ayaan shaqo raadsaday laakiin kumaan guulaysanin aniga wax ma baranin mararka qaar askarta ismaamulka ayaana kala eriya taas ayaa caqabad nagu ah barabara sometimes kanjo wanatusumbua sana ama pia ukienda Eastleigh wale wakifukuzwa pia mko hapo kwa harakati ya kukimbia so kanjo wanaitafia sana juu sijui shida yao ni nini but sioni kama kuna usaidizi yote kwa serikali ya Kenya. Ninaweza nipate job poa, at least nisomesha watoto wangu heshimisha poa yenye nimedream. tani waa la mid Xafsa Hibo Xabiibo ayaa looga yaqaan xaafadda Eastleigh waxaan ka soo raacay xaafadda Eastleigh waxaana tagi doonaa halka ay u socoto halkan ayaan imaanay hadda meelahan waa gurigeeda si ay ii sheegtay waxay ii sheegtay inay maalin walba meeshan dharka iskaga bedesho maadaama aan ay wariye xog baara waxaan u sheegay inaan ooga baahanahay faahfaahinno badan waxaan weydiiyey shaqadan waxa ku kalifay iyadoo ah qof dhalinyaro ah I beg because this is my story by why I beg sheekadeeda iyo sababta aan u tuugsado waxaynu ahayn dad qani ah waliba aad hodan u ah markii uu aabahay dhintay walaalkii ayaa yimid wuxuuna qaatay dhammaan xoolihii waxaana nala ku qasbay in aan gurigii banaanka uga baxno waxaan haystaa walaalo ila dhashay oo wiilal iyo gabdhaba leh iskuulkii ayayna ka hareen taasina waa waxa igu qasbay inaan bilaabo toogsiga ma jirto meel aan aadno waxaan u maleynayaa inaan intaasi ku soo koobi karo sababaha aan dharkan ugu labisto ayaa waxay tahay muslimiinta waxa ay yihiin dad leh qalbiyo naxariis leh oo wax caawiya way wanaagsan yihiin naxariis ayayna leeyihiin badina ma jeclo inay arkaan muslimiinta kale oo dhiban waan ogahay in tuugsiga dadka kale uu yahay in aad qaadanayso si dhib yari ah hantidooda laakiin muslimiinta arintaasi uma arkaan sidaasi taasina waa midda aan u doortay in aan muslimiinta baryo dhammaan waxaan sameynayo waa badbaadin waana quudin sidaas darteed waa inaan sameeyaa wixii aad sameyn karto si aad u hesho waxa kaa maqan waana sababta aan arintan u sameynayo meelaha aan muslimiinta ku tuugsado waa Eastleigh iyo agagaarka masaajidka meelahaasi waa halka aan ku aragno muslimiinta qaniga ah ma garan karo qiimaha aan tuugsiga ku helo maalintii waxayna ku xiran tahay intii aad hesho iyo wixii ay muslimiinta ku siiyaan waan dhigtay iskuul waxaana ugu haray fasalka labaad ee dugsiga sare inta aan ka soo tagin ayaan weydiiyey maadaama ay Soomaalida muddo ku dhex jirtay inay baratay af Soomaaliga iyadoo qoslaysa waxay ugu jawaabtay I know calme Adel maanta waa maalin kale waa jimco dadka waxay isku diyaarinayaan tukashada salaada hadda waxa socda khudbada masaajidka caadiyan jimcaha iyo salaadaha kale banaanka masaajidka waxa jooga dad masaakiin oo rabo in la caawiyo hadda waa laga soo baxay salaada sida idin muuqato dabcan haween ayaa jooga halkan hawlahoodii ayay wataan gacanta ayaana u taagan
markii ay dhamaysatay hawsheeda ayaan la kulmay waxaana wax ka weydiiyey doorsiga asturan ee camalka u ah ayada. aniga muslim ma ahi sidaan ku tukanayaa dharkani waxaan u xiranahay inaan ku tuugsado. waxay ii sheegtay in maalin walba markay gurigeeda ka soo baxdo inay halka dharka iskaga bedasho. in qofka uu yeesho xirfad ama wax isaga gaar u ah waa caadi dunidana way ka jirtaa balse aniga ka Cabdiraxmaan Khaliif ahaan wax aanan qiyaasi karin ayay ugu ahayd la kulanka dumarkan xijaaban ee dawrsi taga haddana aanan islaamka ahayn. barnaamijkan nagama ahayn mid aan dadku leeyahay mas'uuliyadda qaar ee dadka aan dadka kale balse waxaan ka fiirinaynaa in positive ah oo tusaysa in muslimiinta ay jecel yihiin inay caawiyaan dadka liita. aniga waa Cabdiraxmaan Khaliif iyo dhammaan tiimka RTN daawadayaashayna waxaan u rajaynaynaa caafimaad wacan intaan mid la mid ah ku kulmi doonno waxaan ugu tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.